عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalahayga qaaliga meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan waa walaashii Sadiqa Siman iyo mar kale iyo muuqaal idin xiiso gelin doona ma sha Allah. Dhamaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan waxaan rajeynayaa dhamaantiin in aad ciid qurux badan ku wada iideen. ma sha Allah intaas kadib hadaan soo noqdo waa ogeydeen tartankeeni inuu hakad uu ku jiray oo videoga ka horeeyay aan idin soo sheegay inaan hakad gelina calaashan iida awgeed. marka walaalahayga qaaliga hadda iidi waa laga soo noqday ma sha Allah, waa la isku soo laabtay shaqooyinka dib waa loogu soo noqday. marka waxa waaye tartanka haddeertan waxaan wadaa ii sheeg qaybtiisii afraad oo dessert ah. qaybtiisii afraad oo dessertiga laftirkiisa gabdhaha oo ku tartamayo way badnaayeen. gabdhaha dessertiga way badnaayeen sidii gabdhihii hadda oo wareegii dhamaanayo kaleeto oo cashada. marka laba qayboodaan ka kala dhigay insha Allah maadaama ay badnaayeen. marka saddexda gabdhood ee ugu horeysa caaway la tartansiinayo ma sha Allah ayaan idin soo bandhigayaa. gabadha koobaad وإلهان كوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مركو هوري waxaa mahad celinaya Allah subhanahu wa ta'ala. markii xigtana waxaa mahad celinaya asxaabta Sadiqa Siman iyo maxay ahayd walaashii Sadiqa Siman oo noo qabatay tartankan cajiibka ah oo dhiirigelinta ah oo kaale iska arag. tartanku wuxuu ka socdaa groupkeena shirka gabdhaha youtuberska. ma sha Allah tabarakallah. aniga waxaa uga qayb galaya keegan quruxda badan leh. keeg iyo fruit waaye. keegan oo fuul hada u baahan tahay channelkayga tagi kartaa Ilhaan Cooking qor kadibna waa helaysaa asigoo fuulna meeshaas ka daawan kartaa bilow iyo dhamaad. ma sha Allah tabarakallah. hada keegan waan ku tartamaya, waxaan la tartamaya gabdho walaalahay ah. ayagana waxaan leeyahay ma sha Allah waxaan idin rajeynaa guul, anigana inaan guuleysto. markaa soo jaray waa kaasa keega saxanka ay noo soo saaraya waa u jeedin alaab cajiib ah waaye. waxaan u jarayaa inaan tuso fruitka inuu kala daadaneynin oo keega iyo fruitka si cajiib ah iskugu habeeyay. dhaxdiisana waa u jeedin alaabaan caadi ahayn waaye oo ka hadal lahayn. ma sha Allah tabarakallah. haddana idinka tuso dhinacyada keeg oo soft ah waaye sidaas quruxda badan lagu soo baxay. ma sha Allah tabarakallah. waxaan rajeyn doonaa inaad codkiina isiin doontiin. gabadha labaadna waa Rabaab Sabriye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelkayga waa Rabaab Sabriye oo maantana ii wado macmacaan yar oo fudud oo gabdhaha walaalaha groupka iskula jirno aan kula gelayo tartan. marka kunaafa baa la dhahaa macmacaankan. waa macmacaan yar oo fudud oo u baahnayn oven oo waxna u baahnayn oo fridge-ka una 2 saac gelinaysid oo aad iyo aad u macaan. sida loo sameeyana ay fudud tahay insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin videogan. marka sida loo sameynayo iyo sida la iskugu dardarayo baan tusi doonaa. waa macmacaan aad anu u jeclahay kolley oo zaaid u macaan. marka daawasho wacan insha Allah. gabdhaha tartanka igula jirana waxaan leeyahay best of luck. maxaa la jiray guul horumar hore u socda insha Allah. walaalahay aan jeclahay qaali ah. marka macmacaankan kunaafaha la dhahayo baan anu maanta soo bandhigayaa. qof walba wax buu ku fiican yahay. marka qof walba wuxuu hayo inbuu soo dhiganayay. anu intan baa hayaa maanta. marka wakaaba halkaas u kala daadanayo oo maxaa la jiray creamka gudaha uga jiro oo aad iyo aad u macaan aad iyo aad u fudud baan wadaa anu maanta. marka wakaa ah inaad ka heli doontiin inaad maxaa la jiray jeclaan doontiin inaad ii codeyn doontiin. gabdhaha walaalahay kulligeen qof walba soo ogyaa ma kala dhacaan. qof walba gacantiisa Ilaahay u barakeeyo insha Allah. marka anu kan baan soo bandhigay maanta kunaafa baa la dhahaa. marka daawasho wacan insha Allah. guul iyo gabadhnimo kulligeen baan ii rajeynayaa walaalahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gabadha saddexaad نوا أوبح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. welcome back to أوبح channel. kusoo dhawaada أوبح channel kusoo dhawaada. waa tartamkii
saddexaad imika waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa waxaan sameynay dessert baan sameynay cake ayaan sameeyay aniga dee waa ka dee hablaha sharafta leh walaalihiina tartamkeena la qabteen maasha allah kolkaan nagu soo dhawaaya I'm just joking wallahi waa tartam caadina maahaba wallahi gabdhaha ilaahayo noo fududeeya maasha allah dee waa ku kaadi asalaamu calaykum waaye gabadha saddexaad maasha allah saddexdaas gabdhood waxaan idinka codsanayaa dhammaantiina inaad janaladooda tagtaan oo maaragtay aada booqataan waxaad ka heleysaan wax idin wada maaragtay idin qanciya ama aad ku maqsuudaan ama idin raali gelin doona maasha allah saddexda janalba waa ka heleysaan garabna siiya gabdhaha walaalihiina maasha allah oo support gareeya videogaana waa videogii codeynta maasha allah waxaa sameysaa gabar kasta oo maaragtay ama qof kasta waxaan jeclahay inuu maaragtay videogan sii share gareey si asxaab kale uga faa'iidaan ama ay tartamada uga soo qayb galaan ama maaragtay ay ii sheeg ay fikradahooda kasoo dhiibtaan oo maaragtay ugu codeeyaan gabdhahaas maasha allah marka walaalahayga qaaliga gabdhaha sidii hore idinkaga bartaba ama idinkaga aqaaniba waxaan rajeynaa inaad gabdhahaas walaalihiina aada garab istaagi doontaan aada support siin doontaan dhiiragelin commentiyo qurqurux badan intaba maasha allah aada ku saboodi doontaan saddexdaas gabdhood aan magacyadooda hadda aan soo xusay oo ku tartamaya dessertiga insha allah waadna ka heli doontaan runtii ma kala dhacaan dhammaantooda aada iyo aad bay u wada qurux badan yihiin videoyada soo diyaariyeen maasha allah baa idin leeyahay waxaan idin leeyahay saddexdiinaba guul wacan ama good luck a idin leeyahay insha allah kalley qofun baa soo baxaaya marka qofkaasna nasiibkiisa iyo maaragtay asxaabtiisa ku xiran ama asxaabta ka hesha waxyaabaha uu soo bandhigay ayuu kusoo bixi doonaa oo codeyna maasha allah marka walaalahayga qaaliga markuu videogan dhamaado insha allah ama qeybtan ay dhamaato qeybta kale waxay noqon doontaa isla dessertiga laftirkiisa waayo hore idinkugu sheega gabdhuhu way badan yihiin hal mar kama wada dhigi karin marka insha allah hadda gabdhahan waa facekii koowaad face labaadna wuu yeelan doonaa insha allah kadib intaas waxaa kasii dambeeya su-aalo iyo jawaabo kadib markaas face kaleeto oo kadib wuxuu yeelan doonaa weji cusub oo kaleeto insha allah haddii ilaahay ka dhigo marka walaalahayga qaaliga waxaan idin leeyahay haddii intaasaan maanta soo diyaariyey gabdhahan walaalihiina saddexdan gabdhoodaan wadaa maasha allah waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono videoga xiga ama aan ku kulmi doono hawada waxaan idin leeyahay ama waxaa idinkaga sii tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo guul wacan insha allah